nebiyullaahi aadam nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu ahaa aabbihii dadka oo dhan. Eebbe wuxuu ka abuuray dhoobo una tujiyey malaa'igtiisa. Waxaan ka ahayn shaydaan oo diiday inuu u tukado nebiyullaahi aadam. Eebbe wuxuu ku yidhi shaydaankii, maxaadan u samaynayn waxaan ku faray? Shaydaankii oo isla weyne iyo xaasidnimo ka buuxdo ayaa ku jawaabay, aniga ayaa ka wanaagsan nebiyullaahi aadam, oo waxaad iga abuurtay dab, isagana waxaad ka abuurtay dhoobo. Markaas baa Eebbe ku yidhi shaydaankii, waxaad tahay mid laga fogeeyey naxariistayda. xasbunallah wa nicmal wakiil. Shaydaankiina wuxuu Eebbe ka baryey inuu u kaadiyo inta laga gaarayo aakhiro. Eebbana wuu ka aqbalay. Kolkaas wuxuu doonay inuu aarguto shaydaankii. Wuxuu yidhi, Eebbow, sharaftaadan ku dhaartee dhammaantood dadka waan baadiyeynayaa, waxaan ka ahayn addoommahaada daacadda ku ah. Eebbana wuxuu ku yidhi shaydaankii, waxaan ka buuxinayaa naarta la yidhaahda jahannabo adiga iyo wixii ku raacay dhammaantood. xasbunallah wa nicmal wakiil.